كل وناكسن صاحب يالسود وهذا مركز تاجوكتان دافايا دعالة عالمكا هلكان نقد دعوانيسان وأحمد بقية وبرتا إنه دمانتين كودا لنا هاي يوتيوبكا سوماليدا جرمالكا جوكتay iyo Soomaalida caalamka halkay joogaan xogaha Jarmalka iyo Yurub ay kala socdaan maanta bishu waa 26 waa bishii saddexaad sanadda 2021 waa maalin Jimco ah toddobaad ayaa inoo sii dhamaanaya marka sidaas weeye dhowr qodob oo muhiim ah ayaa warkayna insha Allah maanta ku falanqeyn doonaa waxaan eegi doonaa go'aano aan hore idinku sheegay oo wararkayga hore ku jiray oo ku saabsanaa in qof kasta oo diyaarad soo raaca maanta oo Jimco laga bilaabo diyaarad lagu xukumi doono ama khasab looga dhigi doono inuu soo sito waraaq markaasina aan waraaq la'aantaasi diyaarad soo raaci karayn ayaa maanta bilaabmi lahaa laakiin go'aankaasi dib ayaa loo dhigay waxaana laga dhigay ilaa 30 bisha qodobkaas ayaan falanqeyn doonaa iyo qaabka markaasi waddanka u soo geli karo qofkii banaanka ka soo safraya sidoo kale waxaan eegi doonaa gobolka Northern Festival oo war farxad leh shacabka gobolkaasi u soo bandhigay waxaan kale eegi doonaa insha Allah mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolka Baden-Württemberg oo bando habeenkii lagu soo rogay sidoo kale gobolka kale oo dalka Jarmalka ku yaala oo kamid ah gobolada ugu waaweyn gobolkan dalka Jarmalka ayaga laftooda qorsheynaya inay sameeyaan bando habeenkii qodobada kale warkayna ku eegi doona waxaa kamid ah insha Allah dhanka siyaasadda iyo xisbiga guuleysan doona doorashada soo socota ee maalmo bilaha yar ay naga xigaan dhanka kale waxaan eegi doonaa gobolka Northern Festival magaalooyinka ugu khatarta badan leh ee markaasi xidhitaanka halista ugu jira qodobadaas iyo qodobo kale ayaa warkayna insha Allah maanta ku falanqeyn doonaa ee soo dhawaada fadlan hilmaami inaad subscribe tahay channelkan sidoo kale hadduu muuqaalku ka cajabiyo fadlan inaad leegaraysid waa codsi haddii uu ku cajabiyo si aad dareenkaaga noo tustid dhima laha anagu markasta haddii aad wax khalad ku aragtid ama aan ku cajabin xogtaan ku soo gudbinay dislike way ku taaban kartaa sababta ah dareenkaaga ayaa cabiraysaa qofna magaciisa kuma qorna waa caadi marka fadlan dareenkaaga nala soo wadaag si aan wixii markaasi isbedel aan ugu samayn karno insha Allah watahay haddana eegna 24 saacadood u dambeeyay xaaladda coronavirus waxay maraysaa wax la diiwaan geliyay 22573 kiis oo cusub waxaana geeriyooday 226 qof isku celcelis guud ahaan dalka Jarmalka waxay maraysaa xaaladdu 119.1 kiis todobadii maalmoodba dadka xanuunka coronavirus ku dhaco sidoo kale maxadka Robert Koch ayaa maanta shaaciyay in 10% shacab weynaha dalkan Jarmalka ay qaateen talaalka taasoo ka dhigan tiro aad fara badan runtii 83 milyan ayuu shacabka Jarmalku caadiyan gaarsiin yahay marka 10% waxay noqonaysaa tiro 10 milyan ku dhow watahay iminka waxaan eegi doonaa qodobka ugu horeeya warkeena aan ku falanqeyn doonaa dhanka siyaasadda dhanka arrimaha bandowga iyo gobolada markaas la xiri doono iyo arrimahaas oo dhani way inoo dambeyn doonaan marka hore waxaan ku horeyn doonaa dhanka siyaasadda rayuurun ayaa lagu sameeyay shacab weynaha dalka Jarmalka kuwaasi oo lagu eegayo xisbigee doorashada ku guuleysan doona 6 bil kadib ka dhici doonta dalka Jarmalka sadogtihiin Angela Merkel 6 bilood ayaa u dhiman 6 bilood kadib doorasho ayaa dhici doonta kansler cusub ayaa dalku yeelan doona nin ama naag hadba ku noqdo laakiin shacabka ayaa markasta go'aamin doona shacabka waxaad moodaa in xisbigii markaa ugu saameynta badnaa una saadaasha badnaa inuu hoos u dhac ballaadhan uu ku yimi xisbiye markaasi xisbiyada cunsuriyiintana ay kor u soo kaceen marka bal eegnaa codbixintaasi sida ay noqoto iyo markaasi dadku sida u kala codeeyaan mid ayaan idinku sheegi doonaa insha Allah okay yadaba su'aashu waxay tahay dadka la weydiiyay 4 sano ee soo socota dalka Jarmalka iyo hoggaanka u qaban doona 28% waxa ay doorteen xisbiyada midaysan ee xisbiga CDU iyo CSU ay Angela Merkel xisbigeeda iyo xisbiga Suuda madaxweynaha gobolka Bayer ahna xisbiga ugu saameynta badan dalka Jarmalka ayaa 28% ay doorteen shacab weynaha dalka Jarmalka marka xisbigan marka hore ilaa dhowr iyo 30 ayuu gaari jiray caadiyan waxa hoos u dhacay 7% ayuu hoos u dhac ku yimi adigu 7% ay dadkii hore u taageeri jiray ay ka go'een isla markaasina ay dhinaca kale u jeesteen dhanka xisbiga la midaysan labada xisbi ee magaciisa la yiraahdo SPD ayaa isagana waxa uu codeeyay 15% inuu hogaamiyo dalka Jarmalka isaguna wuxuu hoos u dhacay 1% marka saddexda xisbi ee unionka la isku oran jiray marka la isku wada daro waxay hoos u dhaceen 8% ay hoos u dhac ku yimi 4 bilood kadib waxa isbedeli kara wax kasta isbedeli kara waxa macquula aduu 6 bilood ba ka dhiman 6 bilood waxa macquula inay kor u kacaan ama ay hoos u soo dhacaanba oo marka doorashada la gaaro sidan kor uga kacaan ama hoos u soo kacaan wax kasta macquula
xisbiga cunsuriga ah isla markaasina islaamka necab ayaa isaguna aad kor ugu kacay. waa xisbiga AFD waxa uu codeeyey 12 boqolkiiba, waxaanu kor u kacay 2 boqolkiiba oo dad ah. 2 boqolkiiba ayuu kor u kacay oo dad 2 boqolkiiba gaadhaya ayaa markaasi xisbiga cunsuriga islaam nacaabka isla markaasina ajaanibta iyo qaxoontiga iyo soo galootiga kasoo horjeeda u codeeyey. xisbiga kale ee FDP isaga 9 boqolkiiba ayaa u codeeyey oo 2 boqolkiiba ayuu kor u kacay. xisbiga Linki 7 boqolkiiba ayaa u codeeyey, weli halkiisuu taagan yahay, isaga wax kor u kaca ma laha. xisbiga Grune ama xisbiga cagaaran ayaa isagu aad kor ugu kacay, 4 boqolkiiba kor ayuu u kacay, waxaana u codeeyey 23 boqolkiiba. haddii saadaashu sidan kusoo socoto isla markaasina ay dadka taageerayaashiisu ay kor usoo kacaan xisbiga Grunka, waxa macquula inuu hogaamin karaba sanadka 4 sano soo socota dalka ay macquul tahay. dad kuwa kale iyagu boqolkiiba eber boqolkiiba 6 ayay dadka markaasi iyagu xisbiyada kale dheeraadka u codeeyey. haddaba bal aanu eegno waa maxay xisbigan Grune, xisbigan greenka ah ama akhdarka ah ee maalinba maalinta ka dambeysa kor usoo kacaya, gobollo badan oo Jarmalka ku yaala hogaamiya. sidoo kale maalinba maalinta ka dambeysa taageerada shacabka ah ayaan kor usoo kacayaan. xisbigan hore ayuu dalka usoo hogaamiyey, waxa uu hogaamin jiray isaga iyo xisbiga SPD leedo iminka xisbigan hadda hogaamiya unionka kula jira ayaa waxay union isku ahaayeen. Grune iyo SPD ayaa hogaamin jiray dalka Jarmalka 98 ilaa 2005 ayay Jarmalka soo hogaamiyeen. dhanka siyaasadoodu markaasi aad uma xuma sida warbaahintu qorayso oo ajaanibta aad ugu muxma lama oran karo waa dad ajaanibta necab. وتاي كل سياسة ما أنت كده بيسوي بدلي كرسا واحد أسلوب وسوي بحكران مركز سوي حي سوكر ده هل كان نحمد بقيات كلاس عنز إمك ورك إنك لا يعني ديدو مردنا إن شاء الله كبدل أيام لو سمي قان كهراء بلامي ما أنتو أجمعاء ودنك سفر هذا ديارها قف كستو ديارات صورها عدل كترمل كبنان كيسا كي مادة لو أمري إنه قف كاسي ستو وراق بارتان أوكران فارس كسو باري هذا وراق ده سيدان قف كاسي عنو ديارات صورها عكرين وحنا قان كاسي لقد دقي إنه بلامو صدق كبشة صدحاد qof kasta oo Jarmalka imanayana waa in uu laga bilaabo 3 bisha saddexaad uu sitaa waraaq baaritaan oo coronavirus kaga soo baaray. diyaaradaha ma soo qofkaas diyaarad ma soo raaci karo ilaa uu waraaq uu coronavirus kaga soo baaray uu sito. halku doonaha ka yimaado qofkaas wadan gaara lama xusin. qof kasta oo banaanka Jarmalka ka imanayo diyaarad kaga imanaya waa inuu sitaa waraaq baaritaan. diyaaradana ma soo qaadi doonto oo diyaaradaha ayaa lagu amray. haddaba dhanka qofka xuduudda degan ee baaskeel ku imanaya, qofka tareen soo qaadanaya, qofka gaarigiisa wata imanaya, kuwaasi kuma jiraan dadkan khasabka ay ku tahay. laakiin waxa waajib ku ah qof kasta oo dalka Jarmalka yimaado, gaariga ku yimaado, tareen ku yimaado, wax kale ku yimaado, markuu yimaado inuu isdiiwaan geliyo wasaaradda caafimaadka iska diiwaan geliyo, isla markaasina uu karantiin galo qofkaasi. waxa doontid ku imo taasi hore ayay u jirtay waana sii shaqayn doontaa. dhanka karantiinka qofka diyaaradda ka yimaado lafteeda wax isbedel lagu ma sameeyo. imika waxay eegnaa gobolka North Rhine-Westphalia oo ah gobolka ugu shacbiyada ama ugu dadka badan leh dalka Jarmalka. gobolka xaaladiisu aad ay kor ugu sii kacaysa oo iminka casaan ayuu gobolka wada noqday, green kuma jiro marka qaaradiisa eegtidooda casaan ama gaduud. marka haddii gobolkaas uu ku dhaqmo go'aankii Angela Merkel ay ahaa gobolka magaalo kasta oo boqolkiiba kiisaskeedu 100 kiis ay gaaraan in la xiri doono, gobolka oo dhan ayaa soo wada xiraya oo hadda sidoo u shaqeeyo waa soo wada xiraya. marka waxa hadlay madaxweynaha gobolkaasi North Rhine-Westphalia waxaan u sheegay inaanu haba yaraatee gobolkaasi xiri doonin xitaa haddii xaaladdu faraha ay ka baxdo. wuxuu sheegay wax kasta oo dhaca gobolka North Rhine-Westphalia magaalo ku taala lama xiri doono oo xaaladdu hadda sidee tahay waxba lagama bedeli doono, sideedaas ay ahaan doontaa. wax xiritaan imika waxay ku shaqeysaa click and meet dadka gobolkaasi degan. haddaad degan tahay leegta isku muuji, dhanka commentiga noogu soo qor xaaladdu sidee tahay iyo magaaladaada sidaad uga adeegatid. dabcan sidaan warka ku hayo click and meet kaliya ku shaqeysaa meelo si publiga sida gobolka Baden-Württemberg oo kale iska furan oo qofku sidoo doona u geli karaa ma jirto. click and meet ayay ku shaqeysaa. marka sidaa imika tahay ayay sii ahaan doontaa, wax isbedel laguma samayn doono gobolka North Rhine-Westphalia sida uu madaxweynuhu sheegay. balse shacabka waxaa lagu xiri doonaa baaritaan wax walba oo meel kasta ay gelayaan. qof kasta oo soo baxaya waxaa waajib looga dhigi doonaa inuu coronavirus iska baaro oo isagoo waraaq baaritaan sita uu halku doono ka adeegan karo, meeshu doono aadi doono, sida nolosha ay ahaan doonto hadday xaaladdu xitaa faraha ka baxdo halkay doonto gaadho. marka cabirkii ahaa hadday halkay gaadhaa la xiraya ayaa la joojiyey. tiradu halka sida doonto ha u xumaato waxba lama xiraya. marka baaritaan kaliya ayaa waajib kuga inaad soo baadhid kadibna aad danahaaga qabsatid, marka lama xiri doono. balse meelaha xaaladoodu xumaato haysanna qalab baaritaan oo ku filan iyaga waa la xiri doonaa. haddii
magaalada xaaladeedu xun tahay coronavirus faraha ka baxayo boqolaal kiis uu gaadhay waxay noqonaysaa in la xidho islamarkaasina aan loo helayn dadku baaritaan sameeya maadaama dadka aan isbaari karen waxa waajib ku noqonaysa dowladda inay markaasi xidho arrintan ayaa waxa ay ka farxisay dhanka shacabka iyo meheradaha oo ka cabsi qabay in dhowaan albaabada laisugu laabi doono gobolka oo dhan maadaama xaaladdu xumaatay haddii go-aanka hore lagu sii noqdo meelaha qaar ayaan la xidhi doonin hadday wax kasta dhacaan xitaa haddii aanay goobtaasi lahayn adeeg ku filan oo baaritaan oo la xidho dukaamada iyo meelaha kale meelaha qaar baan la xidhi doonin sida timajabayaasha lama xidhi doono wax kastoo dhaca subermarketyada farmasiyada kaalmaha shidaalka waxyaabaha daruuriga ah adigu inta kale awalba waa la furi jiray laakiin timajarayaasha ayaa kusoo biiray oo iyagana la xidhi doonin haddaba meelahe ugu xun oo iminka xaaladooda faraha ay ka baxsan tahay gobolka North Rhine-Westphalia magaalada la yiraahdo Märkische Kreis waxa xaaladeedu maraysaa 233 kiis toddobaadkii boqolkii kun oo qof meelooda deganba Kreiska la yiraahdo Liebe isaguna wuxuu marayaa 229 kiis Ramscheid waxay maraysaa 212 Hagen waxay maraysaa 204 kiis marka gobolkaasi isagu dadka waa laga farxiyay laakiin halis ayay ku jireen in dib albaabada la soo wada laabo iminka Bad-Württemberg aynu eegno gobollo kale oo Niedersachsen ay ku jiraan ayaa noo soo socda iminka Bad-Württemberg ayaan eegi doonaa haddii aad tahay Soomaali degan magaalada Mannheim laga bilaabo caawa barnaamijka gurigaaga ha isugu bixin sababta ah waxa waajib la soo saaray in magaalada Mannheim ay shaacisay in laga bilaabo jimcaha maanta magaaladu ay gelayso bandow habeenkii ah xaaladda magaalada waa soo xumaatay awgii habeenkii laga bilaabo 9 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo socodka waa mamnuuc oo banaanka uma socon kartid gurigaaga kama bixi kartid waxaan ka ahayn waxyaabaha daruuriga ah haddaad xanuunsanaysid oo aad isbitaal aadaysid haddii aad shaqo aadaysid waa okay haddii aad wax degdega markaasi oo aan waxyaabaha daruuriga ah mooyaane shakhsiyan ma bixi kartid saaxiib ma soo booqan kartid suuqa isgama wareegi kartid laga bilaabo 9 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo reer Mannheim niyadda ku haya arrintu saasay noqon doontaa waxaanay arrintaas sii socon doontaa ilaa iyo 11 bisha afraad sanadda 2021 bisha afraad 11keeda inta ka horeysa ilaa jimcaha albaabada ay u laaban tahay habeenkii gurigiina ka bixina haddaad baxdid waxa macquula inaad ganax uu kugu dhaco isla markaasina aad booliska wadada iska heshaan marka waa digniin haddaad reer Mannheim tahay arrintaasi ka digtoonood imkaanayna gobolka Niedersachsen madaxa gobolkaasi Niedersachsen ee baarlamaanka ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladda gobolkaasi kuna fakarayo haddii xaalku sii xumaado inuu ku soo rogo bandow habeenkii ah sida Mannheim oo kale ayuu ninkaasi ku fakarayaa in gobolka Niedersachsen habeenkii lagu soo rogo laakiin arrintaas gobolka oo dhan ma saameyn doonto kaliya waxay qusaysaa dhanka magaalooyinka xaaladooda xumaato kaliya ayaa arrintaasi saameyn doonta haddii magaaladaas waa haddii markaasi uu ku fakarayaa ay hadda go-aan la gaaraya maaha wuxuu doonayaa inuu saas sameeyo haddii qorshe kale la helo oo lagaga gudbana markaa waa la samayn karaa laakiin haddii xaaladdu sii xumaato ayuu sheegay Niedersachsen taas ayay noqon doontaa insha Allah wixii kasoo kordha haddii go-aankaasi la qaatay haddii kale reer Niedersachsen insha Allah waa idinla wadaagi doonaa gobollada kale aan maanta wax wara ka soo qaadana xaaladdu sideedii hore ayay ahaan doontaa wax idinka cusub ma jiraan haddaan xaggiina wax ka cusbayn haddii aad agaarkaaga ama noloshaada wax ka cusub yihiin aad jeceshahay inaad la wadaagto saaxiibada kale markasta Instagramka Axmed Baqaye iyo WhatsAppka 678 dambayso ee aad dhammaantiin wada haysaan waad igala soo xidhi kartaan oo aad igu soo diri kartaan muuqaalada marba waxaas leedahay walaalahaaga kale la wadaag wada jeclahay saaxiibayaal barnaamijkeeni maanta intaasaan kusoo afmeeraynaa intaan barnaamij lamida ku kulmi doono walaalkiin Axmed Baqaye maca salaam